maalin wanaagsan waxaan ahay mawlid xaaji cabdi oo idinla socodsiin doona barnaamijka dooda jimcaha ee waxa ay la tahay galabta barnaamijka galabta waxaynu ku soo qaadanaynaa guud ahaantiis go'aankii dowladda Soomaaliya ay ku gaartay talaadadii inay dalka Soomaaliya ka erido wakiilka xogayaha guud ee qaramada midowga Soomaaliya Nicholas Haysom arrintaasi maxaa ka dhalan kara xiriirka dowladda Soomaaliya iyo xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee Soomaaliya maxay arrintaasi u dhibay kartaa Nicholas Haysom go'aanka lagu eriyay dowladda Soomaaliya ma ku adkaysan doontaa shalay qodbadihii laga kala jeediyay xarunta qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka ee ay jeediyeen safiirka Soomaaliya iyo ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ayay sidoo kale eegi doonaa waxaynu kaloo barnaamij ku soo qaadan doonaa maxay tahay jawaabta dowladda Soomaaliya ka bixinayso dareenka Somaliland ay ka qabto arrintaasi iyo waliba maxaa arrintaasi ka dhalan kara sida u saameynaysa hawlihii dowladda iyo qaramada midoobay ka dhaxeeyay qaramada midoobay ma ku adkaysan doontaa in Nicholas Haysom uu hawshiisa sii wato dowladda Soomaaliya ma ka laaban doontaa go'aankeeda mise way ku adkaysan doontaa barnaamijka waxaa martii inoogu ah mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya khubaro aqoon u leh arrimaha kala duwan dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah dhageystayaasha BBC-duna ra'yigooda halkan Facebook ayaad ku soo gudbin kartaan waxa ay idinla tahay iyadoo Soomaaliya ku adkaysanayso in faragelin lagu sameeyay arrimaheeda gaarka ah qaramada midoobay arrintaasi ma beeninaysaa maxayse ka leedahay mase jirta arrinta lagu eedeynayo ma go'aan degdeg ah mise waa go'aan saxa intaba waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka dooda jimcaha ee waxa ay la tahay galabta 5 galabnimo haddii Allah uu dareemo waad mahadsantihiin